dagaalkii ugu cuslaa ayaa ka soconaya gobolka Awdal kaasoo u dhexeeya ciidamada maleeshiya beeleedka ka soo kala jeeda beelaha Gadabuursi iyo sidoo kale Ciise oo markaasi iyagu muddooyinkii lasoo dhaafayba ku dagaalamay deegaano hoos yimaada degmada Saylac ee gobolka Awdal. Waxaan kula wadaagi doonaa wararkii ugu dambeeyay labada dhinac oo shalay halkaasi uu ku dhex maray dagaal faraha looga gubtay khasaaraha ilaa hadda lasoo sheegayay iyo sidoo kale doorka maamulka Somaliland uu ku leeyahay colaadda halkaasi ka soconaysa iyo sidoo kale dhinaca Jabuuti oo qaadaynta laabo culus oo ka dhana dagaalka ka soconaya xadka ay la wadaagto gobolka Awdal ee Soomaaliya. soo dhawaada wadaadee tahay booqashadaadii ugu gobolka Awdal waxaa ka soconaya dagaal culus oo u dhexeeya maleeshiyaad ka soo kala jeeda labada beelood ee Samaroon iyo sidoo kale Ciise kuwaas oo bilihii lasoo dhaafay dagaal faraha loogu gubtay uu ku dhex marayay gobolka Awdal gaar ahaan deegaanada hoos yimaada degmada Saylac. shalay dagaal ka dhacay deegaanka lagu magacaabo Jiidi ayaa waxa uu markaasi sababay khasaare kala duwan iyada oo markii ugu horreysay la arkay labada maleeshiya oo adeegsanaya hubka aadka u culus ee noocyadiisa kala duwan leh. dagaalkii shalay waxa uu ahaa mid si weyn markaasi loola yaabay kadib markii dhinacyadan ay la soo baxeen hub aad u culus oo ay isku adeegsanayeen maalinnimadii shalay ahayd. labada maleeshiya ayaa waxaa la tilmaamayaa in shalay ay furimaha dagaal ka keeneen rasaas iyo sidoo kale hub aad u culus oo aan horay markaasi loogu ogeyn ama loogu arkin intii dagaalka u dhex marayay bilihii aynu ka soo gudubnay ee dabayaaqada sanadkii iyo bilowga sanadkan xogaha waxay tilmaamayaan in dagaalka intii ugu badneed shalay uu ka dhacay deegaanka lagu magacaabo Jiidi ee gobolka Awdal halkaasna labada dhinac uu ka soo gaaray khasaare kala duwan. dhimashada ayaa lagu qiyaasayaa labada dhinac marka la isku daro in ay kor u dhaafayso ilaa iyo 15 qof halka sidoo kale dhaawacana uu yahay tirabeel ilaa haddana lasoo guraya dhaawacyo kala duwan oo dhinacyada markaasi kala duwan u kala dagaalamaya. waxgaradka u hadlay beelaha Samaroon ama Gadabuursi waxa ay tilmaameen in dagaalka uu sii socon doono ilaa iyo inta ay dhulkooda ka difaacanayaan. waxay tilmaameen in ay difaacanayaan dhulkooda isla markaana maleeshiyaadka dhinaca kale ee beesha Ciise ay yihiin kuwa ka soo dulay dhinaca Itoobiya iyo sidoo kale Jabuuti xaqna aysan u lahayn inay halkan ku dagaalamaan. waxayna tilmaameen inay iska difaaci doonaan ilaa kooda ugu dambeeyana inta uu nool yahay in ay dagaalami doonaan. dhinaca markaasi ee beelaha Ciise suldaanka guud ee beesha Ciise ayaa tilmaamay in dagaalkii shalay uu ahaa mid markaasi khiyaano ah isla markaana maamulka Somaliland uu door ku leeyahay. xilli wasiirka arrimaha gudaha maamulka Somaliland uu ku dhawaaqay in la gaaray heshiis nabadeed oo aysan dagaal dambe halkaasi dib uga dhici doonin ayaa markaasi waxa uu tilmaamay in maleeshiyaadka Samaroon ay weerar ku soo qaadeen dadka deegaanka oo aan ahayn kuwa markaasi hubeysan isla markaana guryahooda iska jooga halkaasna maleeshiyaadkii Samaroon ay ku laayeen dad badan oo shacab ah sida uu markaasi hadalka u dhigay suldaanka beesha Ciise. wixii intaasi ka dambeeyana ciidamada madaniga ee difaaca ee beesha Ciise ayuu tilmaamay in ay u soo dhaqaaqeen dhinaca meelihii maleeshiyaadka kale ay soo weerareen dadka shacabka ay ku dhibaateynayeen. wuxuuna tilmaamay in halkaasi uu ka dhacay dagaal xooggan isla markaana ay jibiyeen maleeshiyaadkii hub iyo sidoo kale maxaabiisna markaasi ay ka qabteen. wuxuu tilmaamay suldaanka beesha Ciise in dhankooda ay yihiin kuwa isdifaacaya cidna aysan duulaan ku ahayn. waxa uu yidhi Saylac waxaa iska leh Ciise mana ka gorgortami doona ayuu yidhi lahaanshiyaheeda waana u dagaalami doonaa oo waan difaacan doonaa ayuu yidhi ilaa inta uu qof naga nool yahayna gabarba ha ahaatee. waxa uu yidhi beesha Ciise dhulkeeda si markaasi fudud laguma qaadan doono loogamana barakicin doono ayuu yidhi. waxa uu ugu baaqay dhinaca kale ee beesha markaasi Samaroon in ay nabadda qaataan haddii ay diidaanna aysan iyagu markaasi nabad ku baryi doonin cidna dagaalkana ay diyaar u yihiin mar walba in ay sii wadaan.